sakaatul fitriga lacag ma lagu bixin karo masaakiinta bedelkii raashin la siin lahaa lacagta toos ma loo guddoonsiin karayaa waxa kale to iyadana aad la isu weydiiyaa meesha ruuxa bixinaya uu joogo meel aan ahayn ma ku bixin karaa waqtigan waxaa laynoo jideeyey laba camal ayaa soo kordhay bisha dhamaadkeeda camalka hore ama shaqada hore waxa weeyaan zakaatul fitriga ama dagarasoonka iyo bixintiisa ka labaadna waxa weeye salaada ciida oo waliba hadda duruuftan istinaa'iga ku soo hagaagay midda hore oo zakaatul fitriga ama dagarasoonka saan ogsoonahay waa shay waa zako oo jirka bini aadamka ka go'da nabiguna sallallahu alayhi wa alihi wasallam uu farad yeelo waajib ka dhigay sida xadiidka Abdullah ibn Umar saxiixaynka ku yimid oo nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay nabigu wuxuu farad yeelay zakaatul fitriga ama waajib yeelay saac oo timir ama saac cunto ama saac shaciira oo nabigu ku waajibiyay sallallahu alayhi wasallam ruux kastoo muslim hadduu waryar yahay hadduu weyn yahay hadduu adoon yahay hadduu xor yahay hadduu lab yahay hadduu dhadig yahay nabigu ku waajibiyay sallallahu alayhi wasallam marka xukunkeeda waa waajib waana farad laazim oo ruuxa muslimka looga baahan yahay waxaa sharti inuu ruuxaasi kari karo awoodi karo inuu bixiyo raashinkaas waxayna culimadu ku qeexaan ama ku dabdiyaan in uu ruuxu heli karo habeenka ciida iyo maalinkeeda wax ka siyaadsan inuu heli karo haysto waxa ka siyaadsan haday qadarkii zakaatul fitriga gaadhayaan uu bixin haday ka yar yihiin intuu heli karo uu kolba bixin inta baa laazim ku noqonaysa isagu inuu iska bixiyo way ruuxu dadka uu mas'uulka ka yahay nafaqadooda iyo masruufkooda isaga ay waajibka ku tahayna waa inuu ka bixiyo ayaa laazim ku oo waajib ku zakada waxaa loo jideeyay xikmadda ku jirta nabiga tilmaamay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri tuhratun lis-saa'imi min al-lagwi war-rafath wa tu'matun lil-masakin ruuxii soomana ramadaan soo soomay soonkiisa qasab waxba galay hadal xun haday tahay ficil xun haduu yahay dambiyo waxba qasay oo dhex galay bini aadam baynu nahay marka wixii galay soonkaagi ama dhaqan xumo ama hadal xumo ayay sakadani dagarasoonkan ka wadnaaye ayay ka daahirinaysaa soonkii bay daahirinaysaa ruuxii soomana waxyaalihii ka dhacay bay ka daahirinaysaa midda labaadna waxa weeye nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam masaakiintana quud bay u tahay oo maalinka dadku wada faraxsan yihiin ayaa la doonayaa in masaakiintu ay faraxa ka qayb galaan oo baahidooda la daboolo oo gacanta loo taago oo laga saaro faqriga iyo baahida laga saaro mujtamaca wax haysta inay ka mid noqdaan iyadana waa maqsadkii ujeedada labaad ee loogu talagalay way zakaatul fitriga sida xadiista nabiga ku iimaanaysa sallallahu alayhi wasallam waxa waajibaya la bixinayo waa cunto waa saac ama suus cunto away sida xadiista ku timid nabiga waqtigiisa sallallahu alayhi wasallam saasay ahayd suuskaasi cuntada iyaga waagi nabiga sallallahu alayhi wasallam waqtigiisa saxaabada cuntadii ay markaa iyagu cuni jireen bay ku bixin jireen ama timir ha noqoto ama ha noqoto heeda baashila shaciirta ama ha noqdo zabiibka ama caano la fadhiisiyo aqit la yiraahdo ha noqdo wixii markaa iyaga cunto u ahaa bay ku bixin jireen halkaas culimadu waxay ka soo qaateen waxay yiraahdeen yaani ghaalibu quutil balad bay dhahaan magaalada iyo dalka marka aad joogteed zakada ku bixinayso cuntada lagu cuno ee u badan cuntooyinka laga cuno ayaa lagu bixinayaa
qadarka la bixinayana waa ka nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku sheegay saac buu ku sheegay saaca waa sidii koobo oo kale waa shay wax lagu beegi jiray waaye miisaan ma ahayn raashimada lama miisaami jirin laakiin yani markaas deegaanka isagaan ka hadlaynaa yani waa beeg hal beeg waaye laakiin miisaan marka loo bedelay marka culimadu qaar 2 kiilo bar qaar 3 kiilo waxbay gaarsiinayaan adiga wax way waa 4 cantoobo oo gacanta lagu qaaday haddana lagu qaaday haddana lagu qaaday haddana lagu qaaday 4 jeer oo saas oo kale ah ayaa saac u noqonaya marka 2 kiilo bar baa hadda loo badan yahay oo la bixinaya oo cunto ah waxa aad u badan su'aasha ah sakaatul fitriga lacag ma lagu bixin karo masaakiinta bedelkii raashin la siin lahaa lacagta toos ma loo guddoonsiin karayaa waa mas'ala khilaafiye weeye madaahibta badankoodu waxay qabaan maya raashin baa la bixinayaa lacag lama bixin karo oo miskiinka lama siin karayo sakaatul fitri ma noqonaysay u badan yihiin fuqahadu waqtigii nabigana sallallahu alayhi wa alihi wasallam sidaas ay ahayd raashin baa la bixin jiray waase jiraan culimo qaba in lacag la bixin karayo oo qiimaha raashinkaas oo lacaga in la siin karayo madhabka xanafiga qaba muxuu ahay waana culimada mucaasiriinta hadda jooga qaal madhabka rajaxayana way jiraan oo leh maslaxadii miskiinka ku jirta ayl raashin in la siiyo oo qiimihiisa qiimo ka hooseeyo uu suuqa kaga iibiyo waxa dhaanta in lacagta la siiyo maslaxada markay fiiriyaan dhankaas ay ka fiirinayaan adiga mas'ala khilaafiye weeye laakiin waxa loo badan yahay in cunto la bixiyo siday fuqahadu u badan yihiin sidaas weeye qiyaasta la bixinayana waa taa aan soo sheegnay yaa la siinayaa weeye waxa la siinayaa oo iska leh masaakiinta iska leh waa kan xadiiskii hadda soo sheegnay nabiga sallallahu alayhi wasallam tu'ma lil masaakiin waa quud masaakiinta loogu talagalay weeye inuu ruuxu miskiin yahay baa muhiima hal ruux si ka badan si zakaatul fitri farabadan hal ruux la isugu geeyo kulli waa banaanta wax dhiba ma laha waxa muhiim ah inuu ruuxaasi uu yahay ruux miskiina uu yahay waxa kale to iyadana aad la isu weydiiyaa meesha ruuxa bixinaya uu joogo meel aan ahayn ma ku bixin karaa iyaduna waa jawaabtu ahaa cid kale waa u wakiilan kartaa oo meel kale to oodan joogin waa laga bixin karaa ehelkaagii carruurtaadoo ka maqan adigu meesha joogto waad ku bixin kartaa meesha iyagu joogaanna waa lagu bixin karayaa mushkilo male khaasatan haday xaaji iyo maslaxa keento iyadana waxa way wax dhiba ma laha goorma la bixinaya waqtigeeda waqtigu wax weeyaan inta aan salaada ciida la tukanin ayaa la doonayaa in la bixiyo maalinka ciida maalin ka hor ama 2 bari ka horna waa la sii bixin karaa hadda maanta 28 baan joognaa haday bishu 30 ku dhamaanayso bari oo jumco ah iyo sabtida la bixin kara la sii bixin karaya haday bishu 29 ku dhamaatana maanta oo 28 iyo 29 ka waa la sii bixin karaya waxay soo ku fadli badan tahay in la bixiyo subaxda